madaxda dalka ayaa cambaareeyay falkii ay kula kaceen askarta shacabka waxa inoo sii ambaqaadaya Cabdicasiis Siyaad iyadoo guud ahaan dalkani Kenya uu ka dhaqan galay 27 bishani bandow lagu soo rogay guud ahaan dalka taasina loo aaneeyay faafitaanka caabuqan coronavirus si looga hortago dhanka kale laamaha ammaanka ayaa dhaliilo kala duwan loo soo jeedinayay taasi oo ku saabsan habka ay ula dhaqmayaan ama ay ula falgalayaan dadka shacabka ah ee ku aadan bandowgani waxa dhanka kale to eedeen u soo jeediyay barasabka Kakamega Philip Obrianga oo sheegay inuu cambaareen u soo jeedinayo laamaha ammaanka sida ay ula hawlgalayaan dadka ku kala sugan countiyada dalka si caabuqani coronavirus uu faafin dhanka kale to madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa laamaha ammaanka u soo jeediyay inay u dhimriyaan shacabka sidii loogu talagalay ayna sidoo kale tan ula dhaqmin si ka baxsan bini'aadanimada isla markaasina ay ugu baaqay in ay si deganaan ah hawlahooda ay ku wataan to make it very unnecessary for them to engage with the police by staying at home and observing the directives given. I'm also urging our police that people should be treated humanely. dhanka kale to waxa ugu baaqay shacabka guud ahaan dalkani Kenya in ay ku sugnaadaan guryahooda laga bilaabo 7 habeenimo isla markaasina waa xilliga loo jaangooyay bandowgaasi una bilaabanayo